Fugitive Abdirashid Janan. Janan, who is a Jubaland security minister, has been on the run from the federal government of Somalia since his escape from Mogadishu, where he has allegedly arrested by the federal government of Somalia. The fugitive and his soldiers have been residing at one of the local hotels in Mandera town, where he regrouped his forces under the protection of Kenya Defense Forces. This turn of event has raised concern among the political leadership of Mandera County, including governor, MPs, senator, MCAs, community elders, religious leaders, and other critical community members. In a bid to find amicable and durable solution, all these stakeholders engaged the county commissioner and other security agencies to de-escalate the worrying tension. However, there was no positive response to that effect. After a series of complaints from the management of one of the hotels, the Janan-led forces later relocated to areas near the border where they rented more than 5 plots within Mandera. They kept on receiving reinforcement with armored vehicles from Kismayu along Elwak, Ramo, Mandera, P9 route in the heart of the Kenya territory. The Jubaland forces kept camping at BP1, border point 1, and areas adjacent to Buruburu Secondary School within Mandera town, thereby endangering the life of students and residents living close to that borderline. Despite all these imminent attacks, the government denied the facts and assured Kenyans that security was under control until no attack shall occur. On Monday 2nd March 2020 at around 10 a.m., Safaricom network was jammed, and immediately there was a heavy gunshots and artillery bombing emanating from Kenyan-Somalia border around Buruburu areas. The heavy confrontation was reported to be between the Jubaland forces taking ambush in Mandera, Buruburu area, and the Somali National Army based in the neighboring town of Beled Hawa in Somalia. This caused confusion among the population, forcing residents to flee their homes, schools, and business closed, and the town was virtually brought to a standstill. The war left behind several casualties, including 6 locals who were hit by stray bullets, sustained serious injuries, and are currently recuperating at the Mandera County Referral Hospital. All the residents living in the border area of PP1, Geneva, Buruburu, Tawakal Township, Bulagarai, Kamor, and CBD were greatly affected. This has resulted in the closure of all primary and secondary schools, banks, hospitals, private and public, transport sector, communication breakdown. It is estimated that approximately 20,000 people are internally displaced by this war and are currently taking refuge at Shefshefe, Niboy, Ramo, and Arabia. Several houses bordering this area were also destroyed by the heavy artillery. Despite all this, we are profoundly astonished by the continuous denial by the spokesperson of Kenya Police, Mr. Charles Owino, who refuted the existence of this war among the Mandera-Somali border. Finally, as we speak, there is imminent attack, as there are reports indicating that Jubaland forces are regrouping at the outskirts of Mandera town, and nothing seems to be forthcoming from our government in terms of hyping the security and addressing the issue. It is unfortunate that the citizens in the country with the law and order have been left at the mercy of foreign forces and militia. It is the primary mandate of the government to protect the lives and the properties of its citizens as enshrined in the Constitution of Kenya 2020. We therefore plead with His Excellency the President, Uhuru Muigai Kenyatta, to intervene and ensure this matter is addressed urgently before the situation gets out of hand. Thank you. I have a question. The forces are regrouping and the war might start again. So as a counter-assembly, what action are you going to take to prevent such ugly incidents coming over again? Thank you, the members of the press. Now, why we are saying that is that we want first of all to confirm that these ragtag militias present in this Mandera County
We have seen it ourselves as the grassroots leaders of this county. Yesterday, these militias being driven around with 15 armored vehicles in this county as if this is Somalia. Why we are also saying is this. What we are saying is this. If this situation is not going to be handled amicably by the national government, it might accelerate to something else that the public and the honorable members present here as the leaders on the ground will have to intervene and make sure that these militias are smoked out of Mandera County once and for all. And that is our stand. And we are also saying we are going to lead, if the government is not going to action, we are going to lead the public in the most peaceful demonstration to their camps and smoke them out once and for all. The people of Mandera County are tired, we as leaders are tired, and we stand in solidarity with our honorable members of parliament who have visited recently to Farmajo in Somalia. Because they say we have to knock each and every door to make sure that peace prevails in Mandera County. And Mandera County is not a battleground for any militias whatsoever. For foreign militias, we demand that the militias who are present in this county, and we have confirmed it, to be moved out immediately. And if there is one, Abdurrashid Janan is still present in this county, we want him to be moved out immediately as the people's representative of Mandera County within 24 hours. Thank you. Any question? Okay, so thank you. دقوشين ما حاول شيء يصير صومالي. هذا نفس صومالي كنا. هذا اللي كده. هذا اللي Assalamu alaikum, members of the press. Aniga af Soomaaliyan rabaa inaan qodobyada NATO la taabtay aan anigana xogaho aan wax ka dhaho annaka reer Mandera haddaanu nahay oo madaxda reer Mandera haddaan nahay waxay shalay Mandera ka dhacay waa wixii aan maxaa la aan filanaynin oo dawladdan ka filanaynin waqtiga ma jirin oo nin madax ama nin joogo wananchi Mandera as yani u maleena in dawladda Kenya nin wadankiisba soo kharibay inay siiso amni oo security oo maxaa la military iyo gawaari intay siiso wadadeen ninkaas ay ku socdo oo amni daradu noo keeno oo askarteen bedelkii maxaa la anaka amnigeena ilaalin lahayd amnigiis loo ilaaliyo dhaawaciisa isbitaalada la keeno aan maxaa la reer Mandera aan aadi karin oo service-kii ay heli lahayd kuwaasayto loo bogo waxaan leeyahay haddaanu nahay regrettable waa very regrettable dawladda inay ka fiirsato waqti badanna waa u sheegnay anakoo leh dhibkanayto wuu soo socdaa dhibkanayto yaan maxaa la waa ninkii yuusan dhib ka soo gaarin dhibkii waa imaaday maxaa la cabsideenna waa la confirm gareeyey waxaan leenahay dawladdu ninkanayto ilaa aas noo jooga annaka cabsi nagama dhammaanayso amni daradana nagama dhammaanayso guriyadii shalay nalaga gubay guriyadaasayto dawladda inay noo maxaa la qarashto oo magdhow ay samayso dadkii ku dhaawacmay dawladda inay magdhow u samayso oo amnigii iyo cabsidii Mandera ka jirto ninkaas intii Soomaaliya loo tarxiilo macal waayo annaka madaxdiina daanu nimankaasayto magaalada ka bixino ayaan duqaalkana fara intaas waxaan
waxaan u tacsiyeynaynaa arrintii shalay ka dhacday Mandera dhibaatada ka dhacday arrinaan aad ugu xunaa waaye waa nasiib darro inay dad oo waddan kale ka imaaday ay isku ciirsadaan isku dagaalaan waddanka dhexdiisa waddanka Kenya magaalada Mandera ugu horeyn waxaan u sheegaynaa dadka reer Mandera haddaan nahnay madaxdiinni oo soo doorateen waan idinla taaganahay wax kasta oo Mandera ku badbaadi ama dadka reer Kenya oo Soomaalida ku badbaadayaan diyaar u nahay inaan garab idin siina waxaan u sheegaynaa mid labaad ninka walaalkeena oo la yiraahdo Cabdirashiid Janan oo jooga magaalada Mandera waxaan ka codsanaynaa magaalada annaga inaan iskaga baxo dhibaato noo keenayaa waa nin waddankiisa soo qarribay waa nin soo cararay waxaan ka codsanaynaa inuu ka baxa uu aada meeshiis ka imaaday iyo Soomaaliya iyo Kismaayo muu ka imaaday taas waa codsi aan u sheegaynaa reer Soomaaliya waxaan u sheegaynaa waa mahadsantihiin aad u mahadsantihiin arrintan iska mid aan ka nahnay waa idin garab taaganahay wax dhibaato ah oo Soomaaliya balaxa lagu sameeyaan ma fiirsanayna waana ka xunnahay assalaamu calaykum waraxmatullaah aniga waxaan u sheegi rabaa ninkaanayta Cabdirashiid Janaan la dhahay dawladda Kenya meel xun ay ka ridin waxaan ka codsanaynaa dawladda Kenya meel ay ka ridin Mandera dad baa iska leh deegaanka annaka iska leh walaalow waddanka noogu bax kuma rabna dagaal haddaad rabtid boolaha dhinaca laga soo galaa Mandera dhexdeed lagama gala shacabkayna naftaas u keentay ilmahayna waa baraarugeen waxaad noo keensatay dhibkaada walaalow dhibkaada Mandera nagala baxan ka codsanaynaa haddaad bixi waysid dawladda Kenya waxa la dhahaa la jiray demonstration kaambiga militarigaas ku jirta orada kaaga bixinaynaa haddaad bixi waysid waxaan ku siinaynaa 24 saac reebulaha waa mahadsantiin walaalayaal tan waa ka simanay ee Kenya ahna noo dilin Cabdirashiid Janaan waa nin waddankiisa soo qarrabi annakana ma hoos haysana waan iska bixinaynaa waqtina si annagaan iska bixinay assalaamu calaykum سيدي هذا جانا نقول ولا كان جانا نمرينا بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعي وحاوي يا عبد العزيز أنا مقعي وحاوي يا عبد العزيز لكت بزول كلا وصل دورتي جيران كعربية وود كوستنس كمدرة إيست ما يشوف لك كجرة أنا غير مدرة ساونا هني أنا قاس بوليس كاين سكبدي هاي وحكمت سيدي arrimaha macallimiinta ay ugu carreen Mandera County sidii al-shabaab oo dib keentay marka anaga culayskaynu iska badan yahay sidii marka hadda waxaan la yaabsanahay dawladda Kenya waxay dhahday macallimiinta uma hayna maxaa la dhahaa security uma hayna ayay dhaheen waxaa la yaabay in dawladda Kenya markay security u hayso ninka la Janan inay Mandera ay ciidamo ay u heli karto in Janaan iyo tiimkiisa Mandera lagu ilaalin karo oo ay haynin ciidan lagu ilaaliyo macallimiinta waa mid la yaab leh oo su'aal weyn oo jawaab loo hayn waaye annaga iyo Soomaaliya Kenya iyo Soomaaliya wala xiriir fiican baa ka dhaxay annaga reer Mandera sawnaani dib Soomaaliya ka yimaad inuu soo gaar anaga diyaar uma nahin waxaan u baaqaynaa dawladda Kenya in ninka la dhahaa Cabdirashiid Janan ninka la dhahaa inuu Kenya iskaga baxa 24 saac gudood hadduu ka bixi waayo annaga shacabka waxaan awood u leenahay inaan mandamaanada samayn karno oo ninkan wixii annaga awoodayna ayaan isticmaali doono oo ninka Mandera ka bixin doono bidnillaahi kariim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقة وفاضل عمر قصاي وكمدة حلبانينتا مندرا كاونتي أسمبلي وحان هالكان كشيء ربا أرنت الشركة علي مقالة مندرا وأرن حن وأرن أن أد أقول حمانا أنا غير مندرا سان أنهني نين مقالة كلا كإمادي ودن كلا كإمادي إني ودن كاين لقول دح مقالة إني لقول دحايو oo security la siiyo idoo macallimiinta security loo waayay idoo
dhib kale oo magaaladan ka taagan nagala bixin waayay inay haddana qof dhib wato oo magaaladan dhib u keenaya inay nagala nuulo dhaxaayo aad baan ugu xunnahay shalay hadda iskuuladii waa nagala xiray bangiyaalkii waa nagala xiray becsharadii dhan way xirantay suuqii dhan way xirmay dadkii carar iyo dad badan oo barakac ku dhacay dad baa dhaawacmay annaga saan reer Mandera u nahay waliba madaxda reer Mandera u nahay waxaan codsanaynaa si ninkan ugu dhaqsiyaha badan oo magaalada nooga bixi karo annaga Jubbalandna ma nihin Somali federalna ma nihin Kenya baana na dhahaa reer Mandera County anahni Mandera County waa county number 9 oo Kenya kamid ah 48 gobol oo Kenya aan kamid nahnay marka annaga Somali mid aan taageerayna malaha ninkan sidan uu dhaqsiyaha badan ilmihii way naga fiigeen iskuul saaki hadda wax aadi ma jirin shalay sida amal cunug walba uu ooyna iskuulka dhexdiisa iskuulkana kama soo bixi karaan ilmihii xabadihii iyo wixii daadanayo haddana iskuulka dhexdiisa taa ku soo daadanayo marka waxaan codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan ninka inuu nooga baxa hadduu nooga bixi waayo marka sharciga anaga gacantayna ku qaadanaynaa annaka iyo dadweynaha magaalada inaan isla istaagno oon gacan isa siino on front line ka qaadano sidii gacantayna sharciga ugu qaadan lahaynay oo anaga iskaga bixin lahaynay oo sida ugu dhaqsiyaha badan anaga amaankaan oo dan amaankayn anagooba mar hore sugneen reer Mandera sa u nahnay haddana mid kale ooyba dawladdeena garab siin haysan ugu soo darsantay anaga reer Mandera shicib sa u nahnay oo madaxda reer Mandera u nahnay fadlan ninka sida ugu dhaqsiyaha badan nooga baxa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxay naga tawanayaan inaan taageersanahay ciidamada marka maxaa leedahay maya annaga ma taageersanin inna reer Mandera ma taageersanin reer Mandera saan u nahnay shicibka reer Mandera saan u nahnay ma taageersanin ma taageersanin waliba waan ka xunnahay reer balad xaw hortayn in lagu duqeeyo oo magaaladayna loo dhigtay dhufays oo magaaladayna laga soo gala dhankeeda aad baan ugu xunnahay anaga waan la taaganahay reer balad xaw waxaana ka dhahayaa intii dhib ku gaaray ilaahay wixii dhintana ha u raxmada wixii dhib qabana allaha u boogadhayo marka reer Mandera reer balad xaw waxaan ugu baaqayaa inaan anaga dhibkan raalli ka ahayn in reer Mandera bil gudaheed waan ooynahaynaa odayaalkii culumadii madaxdi kulli idinka social media waad aragteen u malaynaa aad baan u baaqahaynaa inay nagala bixi arrintan nagala deeyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا waxaan ahay mudanaha laga soo doortay Kalaliyow waxaan dadweynaha Mandera iyo Beled Xaw ku sheegaya arrintan shalay meesha ka dhacday waa arrin aad u foolxun aad loogu xumaaday dadweynihii Beled Xaw iyo gudoomiyahoodii iyo ciidankoodii sharaf weyn ay leeyihiin ummadda meesha ku nool muslimiinta Mandera ay ogaadeen dhibkooda dagaalkii dhinacaan xoog dhinacay oo magaalada uma soo aadinin dhinaca kale aad u hurgufeen waxaas waxaan u yeelayeen intii anaga aad ahaan muslimiin nahni walaalanaahna og yihiin sharaftoodii na siiyaan anaga sharaf ay naga leeyihiin sidii ay noo qaatiyada nahnay dagaalkii anaga diyaar uma ahaan dawladda Kenya ayaga hoos ahaan kala heshiis dadkan oo Malaysia ahaan meeshan u soo dhigtay danta kale yihiin ayaga ka saayaan dadweynaha ma ogo dadweynahan meeshan lagu gumaada loogu tirigalay dawladoodaha inta meeshan lagu gumaada loo tirigalay Kenya dawladdeed inta difaac dawladda Mandera ma rabta Mandera hatta markii ka noqonay macallimiinta waxa la dhahay welcome to Kenya markaas Mandera waxa bi xisaabsantay Soomaaliya shantii oo xidiga ka xisaabsaneed Soomaaliya sidii la haystay NFD taas daraadeed dadkii gumaad oo ku soo dhow madaxweynaha farmaajo ee ciidankiisa iyo dawladdiisa kulli waa mahadsan yihiin xuduudda ilaaliseen annagana ilaaliseen sharaftiina kor u qaadeen taayna kor u qaadeen annaka naftagayna aad baan igu qiiroonay waana la jirnaa garab waan la hanay mar walba in garab taaganahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh